halkan saaka waxaan u joognaa markii magaalada dhibaatadeedu farabadatay waxyaabaha dhibka ugu weyn ay yihiin xagga airportka iyo jidkan ka soo gala Muqdisho janta kundish ka soo dhaca magaalada soo gala burburkiisu batay marka qofka airportka yimaado aad ugu lagu rafaadsan yahay waxaan hadda go'aansanay in wadadan ilaa magaalada soo baxda janta kundish isku xirtaa waa 5 kilomitir hal kilomitir iyo bar oo hore loo dhisay 4 kilomitir ayaa qiyaastii waxaan go'aansanay inaan wax ka qabanno gobolada kale markaan aragnay Soomaaliya maanta horumarkooda iyo wax qabsigooda iyo wadooyinka sida u dhisanayaan iyo maaragta waxyaabaha ay horumarkii gaareen gobolkaani waa gobol aad u ballaaran waa gobol weyn waa gobol magac leh oo muxuu ahaa gobolka Hiiraan magaalahan waa magaalada Beledweyne waa magaalooyinka ugu qadiimsan Soomaaliya haddana wax sibay u burbursan tahay si dawladaantii wixii ka dambeeyay waxada la isdhihi karo in hay'ad iyo wax noocaas oo aan ku tashanayno qorshaha noogu jira ma jiraan waxa qorshaha noogu jiro dadka deegaanka degan dal iyo dibad meesha ay joogaan in ay ka qayb qaataan dhismaha wadadan qof kasto dibadda joogo reer Beledweyne guriga magaalada ka dhisay guriga dhiiqa hor yaacsan wada loo soo maro ma laha haduu yimaado waxa soo dhan waxaan rabnaa si looga gudbo in wadooyinka inoo hagaagaan oo maxaan ku radaa aan jabkeena aan ka bixino guriga qurxoon aan dhisnay wadadii loo soo mari lahaa way halaysan tahay guriga qurxoon in wada qurxoon oo lagu soo gaaro loo sameeyo muhiim waa marka fikirkaas waxaan rabnaa in nala qaataan walaalahena dibadda jiro ay boqolkiiba boqol arintan ka qayb qaataan wafdi soo diri karaan way noo imaan karaan shaqaday nala fulin karaan halkooday ka soo abaabuli karaan intaba waxaan diyaar u nahay gacmo furan wax wada qabsi wada tashi iyo wanaag iyo walaaltinimo inaan wax ku qabsano injineeraan la tashanay waxay noo sheegeen in uu yahay 1 kilomitir 300,000 qiyaastii marka anagu hadda waxaan doonaynaa waa ilaa 4 kilomitir taasoo hadda qiimo ahaan wada weyn oo macno leh oo marshibiyadigeeda wata inaan dhisno iyadana hadda aan ka qiyaas qaadanay inay yihiin totalkeedu milyan iyo 200 $1 qofkii dhiiba wax weyn oo noo taraya 1 mitir qofkii ma aragtaa dhisa wax weyn oo noo taraya waana sadaqa u tajaariya هذا ماشي الله قحي وقف والبو تجي وحو مجتمع دجن ودوينكي سله عافمادكي سله أمنكي سله هجاكسن إيجا هجاجي موجي عد وتمت مجرت أنا جنا وحربنا مركب وح عن هيسنين عن وحكوت شنو وقف البجيب كيس أو فرو وجاليدو أي كلمان وملول بالسجيرو نقالها أنا لقى قيب قاتو نقالها لقى قيب قاتو اسمها قبل كلقى قيب قاتو اسمها الدجمة لقى قيب قاتو اسمها حافظ لقى قيب قاتو annaguna hadda halku waxaan ka dhiganay jeebkaaga fur ee janta gaar janta kaliya ma aha macneeno laakiin hadda koow noo yahay inaan wadada sameeyno ilaa meeshii ay nala gaarto wixii kale oo baahidu siday kala tahayna aan u gudubno ilaahay idankiisa Allah noo fududeeyo